السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت يونا قبضا أضبانني سلامينا نور الفرحة اللي عافيمات ما يعني دي رجينا كسور دواده كنال كينا عافيماتك دكتورك عافيماتك قويسك موقال كان وحينو كسو قادنينا أما إنو كغهالينا وتمرين سيركا ama midhaha aynu bulsho ahaan u naqaano raqayda ama xamarta. Faa'iidada caafimaad ee aynu ka helayno iyo possibility side effects-ga ama waxyeelada caafimaad ee ay dhalin karto ayaynu muuqaalkan ku soo qaadan doonaa. Sida iska caadiga xamarta ama raqayga bulshadeena qaar ka mid ah u yaqaanaan waa mid aynu geygeena caanka cuntada ayaynu ku isticmaalnaa, juice iyo cabitaan ayaynu ka dhiganaa, dhadhan fiican bay leedahay, cuntadana dabcad bay u samaysaa oo way macaanaysaa. Sida iska caadiga ah ee commonka dhinaca cuntada ayay u badantay, laakiin health benefits-keeda iyo faa'iidooyinkooda caafimaad ee laga helo midhahan aynu ka hadlayno ee xamarta ama raqayga waxaa laga yaabaa bulsho ahaan inaynaan si ballaadhan ugu baraarugsanayn. waa taa muuqaalka sababta aynu u soo qaadanayno ama aynu iskugu soo bandhigayno. haddaba raqayga ama xamartu waxa ay leedahay faa'iidooyin aad u waaweyn oo laga dhaxlo marka la isticmaalo ama la samaysto. si laakiin waxa iyadana dhinaca kale baal socda ama iyada qudheedu in la isku tilmaamo oo aan indhaha laga qarsan ah inay yeelan karto saameyno caafimaad ama halis caafimaad inay ku keeni karto dadka. inta badan midhahani waxay aad u fiican yihiin qofku inuu aad u qaato waqtiga aanu xanuuno badan lahayn ama markaad xaaladda caadiga aad ku jirto ayay kuu fiicantay. qudaar ama dhirta inta badan herbalka la yidhaahdo weeyada loo kala isticmaalo ayaa qaar waxay yihiin as a profession, qaarna waxay yihiin as a treatment wax la yidhaahdo, oo qaar waa ka hortag ayay ku fiican yihiin inay xanuunada ay naga difaacaan oo xanuuno badan oo kusoo weerari lahaa ayay kaa difaacayaan. qaarna waxa ay ku wanaagsan yihiin qofku marka xanuunku ku dhaco inuu isku daweeyo oo markaas ayay daweeyaan xanuunka. qaarna labadaba way galaan oo xanuunkana way difaaci karaan waanay daweyn karaan. inta badan dhir marka laga hadlayo ama qudaartu qaabkaas ayay ku kala ay kala martaa. si laakiin tan imika qudaartan aynu ka hadlay midhahan aynu ka hadlaynaa waxay u fiican yihiin xagga inay profession ahaan iyo precaution inay noo noqdaan ayay ku fiican tahay oo ka hortagga ama ka fogaanshaha xanuunka ayay noo faa'iideysaa. haddaynu ku soo dhowaano xanuunada ay naga difaaci karto maxaa ka mid ah? qaar ay daweysana waynu sheegaynaa. xanuunada ay naga difaaci karto waxaa ka mid ah xanuunka sonkorowga la yidhaahdo ama macaanka aynu naqaano ee haddii uu bulshada ku dhaco weliba taybadkiika kala duwan, laba tayb buu leeyahay ama noocyo kala duwan ayuu leeyahay. qaar ka mid a qofku rifan qaado oo uu lisan qaado oo awoodiisu baabaado oo jidhkiisu lumo oo markaa haddii ay nabar ku dhacaan ay bogsan waayaan oo dawo aan lahayn ilaa qofka marka dambe uu runtii xaaladiisa u cidhiidhi geliyo ama uu meel xun gaadhsiiyo. xanuunkaas sidaa u dhibta badan way naga difaacda, waxaanay leedahay runtii antioxidant ka qayb qaata inay gubto sonkorta jidhkeena ama inay badiso insuliinta jidhkeena inay sare u kacdo. taas ayay ka qayb qaadataa oo ay faa'iido ballaadhan u leedahay. xanuunka daweyntiisu ay runtii aadka u dhibta badan tahay ama dawadiisu ay long life-ka tahay ilaa cimrigaaga inta ka hadhay aad qaadanayso way naga difaacdaa oo way u fiican tahay. jidhka inta badan sonkorta ku jidhka ama qulqulka dhiiggeena raacaysana waxay ku samaysaa inay markaa ay yarayso ama xaddigeeda ay hoos u dhigto oo dhiiggii ay nadiifiso ayay ka qayb qaadataa. markaa dadka inta badan khatarta ugu jira ama waalidkooda ay macaan iyo sonkorow lahaan jireen ama inta badan iyaga qudhoodu fadhigoodu badan yahay ama macaanka inta badan ay isticmaalaan uu badan yahay inay qaataan oo ay tan ka faa'iidaystaan ayaynu u soo bandhigaynaa oo weliba coddeer aynu ugu sheegaynaa. qodobka labaad ee kale isaguna dabcan aadka u muhiimkaa ee ay naga difaacdo waxaa ka mid ah ama ka qayb qaata inay runtii ay naga ilaaliso waa wadna xanuunka. dadka inta badan wadnaha xanuunaan ama xanuunada kala duwan ee wadnaha ku dhaca
ee dhinaca wadnaha iyo heartiska waxyeela ee qofka dhibaateeya kuwaana waa ay ka qayb qaadataa. macnaheedu waxa weeyaan antioxidantiskeeda ayaa sii ballaadhan oo inta badan wadnaha waxyaabaha qofka waxyeeleeya dhinaca dufanka ayay kaga yimaadaan, ama qofku dufanka calooshiisu ay ku badatay, ama waxa uu isticmaalaya dufanku ay ku bateen, ama ay saayid ku noqdeen, ayaa waxa uu ka qayb qaadataa inay markaa ay la dagaalanto dufanka badan ee jidhka soo gelaya ayay ka qayb qaadataa. antioxidantiska ay leedahay ama maadada sifaynta iyo nadiifinta uurku jirta ee ku badan iyo jidhka sunska saarkiisa ayaa ku badan midhahan aynu tilmaamaynay raqayga ama xamarta loo yaqaano. dhinaca kale haddii aynu ka eegno qudaarta, midhahani waxa ay runtii ka hortagaan oo qofka ay u fiican yihiin in cayil saayid fuulo, ama wax loo yaqaano weight loss bay ka qayb qaataan, miisaanka qofka inay balance gareeyaan, culayska saayidka iyo cayilka saayidka iyo baruurta saayidka inay ridaan ay dejiyaan ayay ka qayb qaadataa. weliba qofka intuu cabitaan ka dhigto salaada hore cabba waxay ka qayb qaadanaysaa inay markaa ay qofka jidhkiisa ay aada u listo oo ay ka qayb qaadato in awooddii iyo culayskii badnaa iyo cayilkii badnaa ay yaraadaan. xanuunada ilaa hadda ay lagaga badbaadi karo waa xanuunada waaweyn ee uu ka mid yahay wadna xanuunka. aynu ognahay qofka haddii uu ku bilaabmo xaaladiisu sida ay u adag tahay, iyo xanuunka macaanka ee xanuunada aan dawada lahayn ku jira ayay ka hortagaysaa, kuwaas way ka hortagtaa. haddaba xanuunada lagu daweeyo ayaa iyaduna dabcan aada u muhiim u ah inaynu halkan iskaga tilmaamno. xanuun la yidhaahdo xanuunka bulshadeennu ay u taqaano xundhurta waa qofka oo calooshu ay inta badan majiiranto oo caloosha la qabto oo calooshu ay xanuunto. caruurta yaryar baa inta badan lagu arkaa ee ilaa 10 sano ka yar meelaha, laakiin dadka waaweyne waa ay leeyihiin xanuunka noocaasa ee la yidhaahdo xundhurta ee bulsho ahaan aynu u naqaano xundhurta. qofka marka uu ku dhaco haddii cabitaan lagu sameeyo oo uu cabo oo cabitaan ahaan uu qaato, calooshii waa ay nadiifisaa oo markaa waxyaabihii soo galay caloosha ee diidayay ee qofku markaa uu xanuunsanayay ee caloosha la majiirayay waa ay ka baxdaa meesha oo waxay noqotaa mid markaa calooshiisu ay ilaa xad uu ka raysto oo uu ka dareemo deganaansho iyo xanuunkii iyo dhibtiin ay ka yaraanayso. dhinaca kale xanuunada ay kasii qayb qaadato daweynteeda waa marka qofka haddii ay ku tagaan ama uu isticmaalo waxyaabo markaas fuuriyaan ah ama markaa qofka jidhkiisa sun ku noqon kara ama jidhka qofka caloosha qofka iyo jidhka qofka xanuujin kara, sidaynu tusaale ahaan oo kale waxyaabo aan wanaagsanayn qaatay, ama wax runtii kimikalku ku badan yahay qaatay, ama wax markaa waxa qofku sun ku abuuri kara, ama markaa uu food poison ay samayn karaan ku dhici kara, ama cunto markaa aan nadiif ahayn uu qaatay. waxa qofka markaa calooshiisa ay tagaan, qofku haddii uu koob inta uu qasto oo uu juice ka dhigto ama uu cabitaan ka dhigto uu cabo way ka baxaysaa waanay nadiifinaysaa. sababta arrintaa u saamaxaysaana waa maadadan antioxidantiska ah ee aadka ugu badan ayaa ka qayb qaadanaysa inay caawiso. waxay kale ka qayb qaadanaysaa inuu markaa qofku uu sidaa beerkiisu nadiif ku noqdo oo waxyaabihii istuulay ee accumulationka sameeyey ee beerka qabsaday ee markaa wasakhda ahaa ee aan waxa fiican ahayn ee jidhka dhibaateynayay inay ka qayb qaadato inay nadiifiso. waa markaa cabitaan aad ka dhigato midya 2 xabo aad mudmuusataa ama aad isticmaasho maaha ee cabitaan baad ka dhiganaysaa inta lafta ka saarto ayaad caadi cabitaan juice caadiya aad ka dhigan doontaa biidmillah. dhinaca kale haddii aynu ka eegno waxyaabaha ay aadka faa'iidada ugu leedahay ama tayada ay qofka ibni aadanka xagga manaafacaad ahaan ay u yeelanayso ama waxtar ahaan ay u yeelanaysaa waxa weeyaan dadka iyaguna inta badan la cadilan ama dhibaataba ay ka haysato in calooshooda ay waxyaabaha qaar sida beer xanuunka dad kale ee markaa ay khashin ku jiro ee uu beerka dul saaran yahay, ama inta badan beerkooda aanu si fiican u ridqaynin subaga iyo saliidda iyo dufanka, ama markaa aanu si fiican u dhalaalinaynin sonkorta. dadkaana way caawisaa oo si fiican ayay uga qayb qaadataa inay markaa caafimaadkooda ay kusoo kabtaan. haddaba maxaynu doonaynaa aynu kaga hadlaynaa qaybtan dambe, waxaynu kaga hadlaynaa maxaa ka dhalan kara cabitaanka faraha badan ee la isticmaalo ee la cabo midhahan loo yaqaano
marka xamarta aynu niraahno maxaa ka dhalan kara cabitaankeeda faraha badan aynu qaadano waxa ka dhalan kara dadka inta badan qaata waxa ugu badan waa indho qalal ayay leedahay ama inta badan dawooyinka loo qaato qaybta indhaha ayaa laga sameeyaa marka indhaha qofku waxay ka dhigtaa kuwa tawafa ama inay qalajisa ayaa la arkaa oo indhaha qofka indhaheena inta badan waa ay qoyan yihiin deecaanaa lagu soo daayaa qanjidha ayaa markaa waraabiya markaa daray bay ka dhigtaa sababta arrintaa loogu sababaynayaana dawooyinka indhaha lagu shubo ayaa waxyaabaha laga sameeya qayb ka mid waxay ka mid yihiin xamarta ama raqaydan ayaa laga sameeyaa marka qofku waxaa laga yaabaa hadduu aad u qaato inuu indha xanuun iska yara dareemo ama indhihiisu inay yar qalalaan oo dheecaanku ku yaraado ama qoyaanka iyo ilintu ay ku yaraato ayaa la arkaa taas waa qodobka koowaad ama waa possibility-ga ugu badan ee laga dhaxli karo xilliyada qaar waxay samayn kartaa stomach cramping wax la yiraahdo ama calooshu qofka inay disorder ku samayso oo calooshii waxoogaa qofku marka uu cabo inay majiirto caloolka way ka duwan yahay xanuunka la yiraahdo saynu tilmaamnay xundurta dadka qaar inay midhicirada ay ka dareemaan xanuun ama caloosha ay ka dareemaan xanuun ayaa la arkaa oo ku samaysanta intaas ayaa u badan intaasina inta badan dadkoo dhan common kama aha ee waa inta possibility ahaan ama suuragalnimo ahaan ka dhici karta ee lagu arki karo midhahan xamarta ama raqayga ama lagu magacaabo tamariinka tima weeyaan inahaas ayaynu kusoo ururinaynaa lasii wadaago usii sheergareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol farxad leh aan idin rajaynaynaa caafimaad qab baan idin rajaynaynaa cimri dherer baan idin rajaynaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu